sanadkii 1976 ayuu ku dhashay magaalada Blenheim ee dalka Ireland wuxuu ku soo koray xero ciidan oo ku taala dalkaasi maadaama aabihiisu ka mid ahaa ciidanka wuxuu bartay cilmiga farshaxanka waxa lagu tilmaamaa geem sameeyihii ugu saameynta badnaa qarnigii 21 in ka badan 400 oo milyan oo qof ayaa ku xiran geemkiisa wuxuu nashqadeeyay ka ahaa dalka Brazil muddo 5 sano ah ku dhawaad 50 milyan oo koobi ah ayaa geemkiisa laga iibiyay sanadkii 2018 wuxuu halkoox isku keenay 4 qofood oo joogan dunida dacaladeeda Erangel, Miramar, Sankook iyo Vikendi waa khariidooyinka ugu badan ee lagu ciyaaro geemkan waxa hantidiisa lagu qiyaasaa 5 bilyan oo dollar Brandy Green waa mu'alifka geemka caanbaxay ee PUBG Mobile kaasoo loo soo gaabiyay Player Unknown Battleground wuxuu ahaa nin noloshiisa ka soo bilaabay meel hoose dalka Brazil ayuu ka sawir qaaday iyo DJ isagoona qaadan jiray lacag ka yar $200 in badan ayuu shaqo raadin ku jiray xilli isaga iyo xaaskiisa ay ku noolaayeen dalka Brazil sanadkii 2015 ayuu bilaabay isku day ku aadan samaynta geemka balse caqabado dhaqaale oo haystay ayaa dib u dhac fara badan ku dhigay 2017 ayuu ku bilaabay in uu kireysto goobaha lagu kaydiyo xogaha 2018 ayaa si rasmi ah uu suuqa ugu galay geemkiisa warbaahinada caalamka ugu caansan ayaa ku tilmaamay mucjisadii qarniga hadda waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu saameynta badan caalamka Brandy Green hadda waxa uu macsalaamay noloshiisii hore wuxuu qayb ka noqday bilyaneerada caalamka PUBG Corporation ayaa loogu magacdaray shirkadiisa taasoo samaysa geemyo kala duwan xarumaha shirkadaasi ayaa ku yaala wadamo ay ka mid tahay Koonfurta Korea sidoo kale wadamo fara badan